isagoo ka duulaya ahmiyadda iyo mudnaanta uu siinayo in dalkan ay ka qabsoonto doorasho ku dhacda si hufan ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kulanka oo qaatay saacado iyaga wada hadleen qabsoomidda doorasho daahfuran oo si nabdoon ku dhacda xalinta tabashooyinka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo in dhammaan dhinacyada siyaasadda oo dhami ay xil iska saaraan xasiloonida dalka kana fogaadaan hadal ama ficil kasta oo abuuraya qalalaase amni. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa mar kale xaqiijiyay kuna celiyay sida uu diyaar ugu yahay inuu la fariisto dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka ka aragtida duwan dowladda si uga dhageysto talooyinkooda una xalliyo tabashooyinka ay qabaan. Afhayeenka xukuumadda oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay ahmiyadda kulankaas u lahaa iyo waxyaabihii ka soo baxay. بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية محمد حسين روبله waxa uu xafiiskiisa galabta ku qaabilay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale tabashooyinka jira iyo sidii dalkan si daahfuran doorasho ay uga dhici lahayd taasoo runtii laga gaaray safgarad sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku celiyay hadalkiisii ahaa oo hore ugu sheegay in had iyo jeer uu diyaar u yahay in uu la fariisto dhinac walba oo leh fikrad ka duwan ama aragti qaba ama maartay tabasho qaba sida darteed ra'iisul wasaare wuxuu sheegay inuu had iyo jeer diyaar u yahay in uu cid walba la kulmayo siyaasiyiinta kale iyo cid kasta oo danaynaysa arrimaha siyaasadana uu kala hadlayo si dalkan ay uga dhacdo doorasho. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.